laakiin anigu silsilada wada dheefsiga oo ah qofka soo saara qof ninka dhaxay ka soo qaaday ninka beerleyda amba ardaaga leh ka bakhaar dhiga ka farsameeya oo saliid ka soo saara ilaa qofka ugu dambeeya ee isticmaala beeyada silsiladaas iyo qof walba wuxuu ku daro ayaa magacaygu waa Sacad Maxamed Xadi waxaan dhigtaa jaamacad la yiraahdo Van Halenstein University of Applied Science oo ku taala wadanka Holland waxaan daraasad ku sameynayaa silsilada wada dheefsiga beeyada khaasatan waxaan daraasad ku sameynayaa waxa weeye sidee loo horumarin karaa beeyada iyadoo beerleyda yar lagu xidhayo suuqa dhoofinta intaas waxaan daraasad ku sameynayo marka saaxiibaday ayaa ugu marti qaaday beertooda amba ardayada magaaladan Madarmuge oo ka tirsan degmada Ceergaabo runtii deegaan aad qurux badan waxyaabaha si gaar ah daraasada ku sameeyay waxa weeye sidee loo horumarin karaa beeyada laftirkeeda marka geedka ma ahay marka la soo jaro oo tusaale ahaan marka meelaha qaar la soo jaro waxa la dhigaa meelo god baa la dhigaa amba cariish baa la dhigaa ciidda iyo dhaska iyo cayayaanka oo dhan daway ku soo ururayaan geedkii wax bay ku beerinayaan oo tayadiisii wax bay ka bedelayaan marka maxaa laga bedeli karaa mararka qaar waxa timi cabasho ah in dhinaca lacagaha dadka beeyada in laga amaahdo mararka qaar aan lacagtii loo soo celin taasina waa dhibaato kale maxaa laga bedeli karaa xilligii hore dawladda Soomaaliya waxa jiray wakaalad la yiraahdo wakaaladda xabkaha iyo faleemka oo dhoofin jirtay beeyada haddii imkaan soo celino maxay ku soo dari kartaa beeyada oo bariga hore iyada iibsan jirtay beeyada dadna beerleyda lacagtooda marka way heli jireen hadhowna hay'adda amba wakaaladda beeyada ayaa iyaduna faa'iido ka sameyn jirtay marka maxaa laga bedeli karaa daraasadda wali xog runteedii mar wadnaa may gaana xil la soo bandhigo marka insha Allah ilaa bisha 9aad baan soo bandhignaa xogteeda intaasaan su'aal ka weydiiyo maxaad ku dooratay inaad xog ururin ka samayso beeyada macnaha maxaa kugu dhiirigeliyay wadan joogno wax ka dhiganayno qof kasta wuxuu daraasad ku sameeyay wax wadankiisu leeyahay marka aniga wadankeena wuxuu leeyahay marka laga yimaado xoolaha waxa kaliya adduunka laga yaqaan waa beeyada oo waxa la yiraahdaa waa shayga ugu qadiimisan adduunka ee la hadda laga ganacsado taariikhdiisa waxa la sheegay ilaa 5,000 oo sano inuu ganacsigu uu socday Soomaalideena halkan joogtaa waynu koobanay muddo yar ma jirnay laakiin qarniyada naga horeeyba ayaa la ganacsanay marka inaga haddaan daraasadan sameeyo oo jaamacadaydii aan geeyo waxaan rajaynayaa inay wadankayga wax ku darto anuna aan soo arko ugu yaraan wixii aan qaban karay ugu yaraa oo ah inaan cilbaaristayda beey ku sameeyo inaan ku sameeyay marka intaas u baaxiisa aniga xiisay lahayd oo ah in wadankayga wixii aan tari karno ma jirtaa intaad maadaamaad fiilka ku jirto oo aad hadda xog ururinta ama cilmi baarista aad wado wax ka horeeyay oo cilmi baarisi ah oo beeyada laga sameeyay way jirtaa oo wax laga sameeyay geedka iyo sidoo waari karo geedka beeyadu ma noqon doona mid waari kara ayaa laga sameeyay daraasado oo leeyihiin dhirta hadii geedka sidan hadda loo nabrada lagu sameeyo loogu wado waxa dhici doonta in geedku mustaqbalka dhinto oo geedkana dawaynu garanayno markaan ka sheekaysanay geedku 200 sano 300 sano geed qof kasta wuxuu garanayaa oo beerahan leh amba ardaydan leh geedkan isagoo jiro marka geed 200 sano jiray inaad muddo yar disho waxa weeye waa dhaqaale burbur kugu yimaad adiga iyo wadankaaga labadaba marka daraasaas way jiraan laakiin anigu silsilada wada dheefsiga oo ah qofka soo saara qof ninka dhaxay ka soo qaaday ninka beerleyda amba ardaaga leh ka bakhaar dhiga ka farsameeya oo saliid ka soo saara ilaa qofka ugu dambeeya ee isticmaala beeyada silsiladaas iyo qof walba wuxuu ku daro ayaa su'aashayda ugu dambaysa markaad dhamayso daraasadda maxaad is leedahay bay faa'iido u noqon kartaa dalka iyo dadkaba waxay abuuri doontaa soo jiidasho kale ayaa abuuri doontaa oo dad hore aan hore u aqoonin ayaa baran doona way dadka jaamacadaha Yurub inta badan waxay aad ugu xiran yihiin dadka kuwa deeqa bixiya kuwa mashaariicda bixiya kuwa lacag laga amaahdo bangiyada ka mid yihiin ayay ku xiran yihiin marka waxa laga yaabaa warbixinta markaan daabacno in jaamacadeedii geeyo jaamacadii inay iyada laftirkeeda daabacdo isla markaana dad kale oo ku xiran beeyada amba wixii ku saabsan kaymaha aqoonta kaymaha
iyo deegaankaba ay arkaan dabadna waddankeennii ay dib uga soo noqdaan waayo beenyada innagaa leh waxaanu nahay dadka asalkeedii sheeganaya ma jirto innaga iyo Ethiopia iyo Eritrea waan leenahay laakiin innaga ugu caansan dad kale beenyada marka waxaan rajeynayaa in dareen kale iyo fikirro cusub oo kale ay ku soo kordhiso beenyada suuqa beenyada